qaar ka mid ah cuqaasha waayeelka ee waxgaradka gobolka saaxil oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa waxa ay ka hadleen muwaadin cabdisalaan axmed dekele oo ku xidhan magaalada muqdisho waxaana xarigga muwaadinkan ay ku eedeeyeen taliyaha sirdoonka soomaaliya odayaashan iyo waxgaradkan oo hadalka u kala dambeeyey ayaa madaxweynaha soomaaliya ugu baaqay inuu wax ka qabto xarigga muwaadin cabdisalaan axmed dekeli waxaa xidhan muddo 3 bilood iyo ayaama ah cabdisalaan axmed cigaal oo ku xidhan caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo u aftuuban ama uu qafaashay taliyaha nabadgelyada Soomaaliya Fahad Yaasiin ninka la yiraahdo marka hore waxaanu halkan kala hadlaynaa maasiyad u diraynaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo aanu leenahay Somaliland waxa nabaradeeda ay ku sii yaalaan oo wali aanay ilaabin dhibaatadii uu geystay madaxweynihii Soomaaliya ama rajiimkii Maxamed Siyaad Barre oo ka soo jeeda ama adeeru Maxamed Cabdilaahi Farmaajo annaga oo tii go'aanayna oo nabaradeedii aan ka bogsan ayaa maanta dhibaatada ka dhacaysa Muqdisho waxa ka mid ah nin kasta oo Somalilander oo u shaqo taga Soomaaliya dhibaata la soo gaarsiiyaa dhibaatadaas madaxweynahaasi uu og yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo haddii aanu dhaqso uga jawaabin aanu degdeg uga jawaabin waxaanu halkaa ay nooga caddahay inuu dhammaystirayo dhibaatadii hore ee uu ka tagay rajiimkii Maxamed Siyaad Barre taasi waa qodob waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya uu sheegayna ninka muwaadinka Soomaaliland ee 3 bilood hadarada ku xidhan ee aan meel alle meel ku xidhan la garanaynin ee noloshiisu waxay ku sugan tahay aan la garanaynin ee alaanka ehelkiisa aanu garanaynin nolol iyo dhimasho wax ku sugan yihiin haddaan u soo noqdo ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin waa taliyaha nabadgelyada Soomaaliya Fahad Yaasiin laftiisa eheladiisa waa naqaana gobol walba degan yihiin haddii arrintaa uu kula kacay muwaadinka Somaliland Cabdisalaan Axmed Cigaal degdeg aanu u soo dayno aan xorriyadiisa ugu soo celinin waxaanu halkaa ballanka ka qaadaynaa inaanu ka jawaabi doono waxa muddo ku xidhan muddo 3 bilood waxa ku xidhan magaalada Muqdisho walaalkay Cabdisalaan Axmed Cigaal Cabdisalaan Axmed Cigaal wuxuu ahaa nin shaqaysta oo aan siyaasad shaqo ku lahayn hay'ado u shaqeeya wuxuu u xidhan yahay sirdoonka Soomaaliya waliba ninka Fahad Yaasiin la yiraahdo arrinkiisu dhinac u dhaafilay madaxweyne Farmaajo waxaanu taariikhda ku haynaa Farmaajo marka hore la hadlaya waxaanu taariikhda ku haynaa in wadankan Soomaaliland la yiraahdo uu xasuuq ka dhacay cidda xasuuqa ka geysatayna ay tahay dawladii Soomaaliya ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka soo jeedaa family-gu ka soo jeedo maanta ninka wadanka Soomaaliya haysta la yiraahdo Farmaajo la yiraahdo arrinkan maanta Muqdisho ka dhacaya qafaashada Cabdisalaan Axmed Cigaal iyo rag kale lagu haystaa waxay la xiriir la leedahay xasuuqii hore Soomaaliland loogu geystay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaan leenahay arrinkan nooga soo jawaab haddii kale waxaan u qaadanaynaa inaad sunnihii adeerka aad fulinayso oo aad ku dhaqaaqayso ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin ee uu xidhay Cabdisalaan Axmed Cigaal waxaan leenahay Soomaali meel walba way joogtaa ehelkaagu 6 gobol ee Soomaaliland meel walba way joogaan sharaf iyo karaami naga mudan yihiin maxay tahay manihin dadka qafaasha laakiin marka aad sidan u dhaqanto waxa imanaysa in sida aad u dhaqmayso anaguna aan u dhaqanno ninka sarkaalka ah Cabdisalaan Axmed Cigaal ee ku xiran Muqdisho muddada dhowrka bilooda ninkaasoo sharci darro lagu haysto madaarkana laga qabtay ninka uu dul saaran yahay xadgiisa ka dambeeyay inuu yahay ninka nasa haysta ee ku magac dheer Fahad ninkaasi ciduu yahayna waanu garanaa cid la ceelada waanu garanaa qaar baalka maraakiib wakiil ka ah oo berbera jooga oo saacada haddaan noqono aan buur madow la tikarano waxaanu sheegaynaa ninka haddaan si degdeg u sii deyn kuwa Hargeysa jooga in maadariidii waanu garanaa kuwa berbera joogana waanu garanaa wallahi cadin buur madow waan la tagaynaa Farmaajana waxaanu sheegayaa war Fahad ma dadka laabad meesha ugu dhibatay oo dadka jeelash ku Soomaali karmaar mesmaal buu wada joogtaa dhibta halka ka dhacdaana Farmaajo aad ka dambeeya oo lagu aaneynaya dad baale Soomaaliya la hadlaya Soomaaliya ayaa la wada hadlaya iyo Somaliland baa la wada hadlaya annagu nooca dadka qafaalanaya horta lama hadallo mana hor fadhiisano waxaan iskama weydiino waxaan u sheegayaa maamulka meesha jooga xamar anigu dawlad oran maaye ee dadka airboardada ka qafaalanaya waanu garanaynaa cidda qabsatay aadna nagama saarayna ka Fahad ay qabsaday waanu garanaynaa
sida ugu dhaqsaha badan le ninkaa haddaan uga soo jawaabin inankaas isagaa isu geystay wixii ku dhaca maslax salaabaan sidee wararka telefishinka Ariel Berbera.